dhaanta baana ya diyaara soo dhawaada Somalia xuska munaasabada kowda luuliya uu soo agaasimay Shaafi Shafaad ayaa lagu qabtay galbeedka magaalada Columbus Ohio. La taliyaha madaxweynaha dowladda Mareykanka Xamse Warfaa ayaana calanka Soomaaliya suray goob fagaara ah oo ay daawanayeen waayajoog u ahaa xilliyo badan oo calanka la surayay. Dhalinyaro iyo caruur qaarkood aan weli tegin Soomaaliya balse jacaylka calankoodii goobta keenay. Dr. Sadiq Enow oo kamid ahaa waayajooga Soomaaliyeed ayaa dadka la wadaagay taariikh kooban oo ku saabsan maalinta kowda luuliyo. reer Columbus waa idin salaamay waa ku faraxsanahay xafladan quruxda badan dadkii soo abaabulay dadkii ka soo qayb galay iyo maamulka degmada intaba aad baan uga mahadcelinayaa kowda luuliyo waa maalin wax badan noo dhashay waxay noo dhashay rag geesiyaal ah oo siyaasiyiin ah oo aqoon-yahano ah oo Soomaali u horseeday dawlad hanaan dimuqraadiyada ku dhisan tii ugu horreysay Afrika dawlad madaxweynihii ugu horreeyay oo doorasho qof iyo cod ah xilka ku wareejiyay madaxweyne kale oo walaalkiisa dawlad UN-ta ku leh sharaf kursi cod qiimo culus ku fadhida sidaa darteed kowda luuliyo waa maalin Soomaali weyn oo dhan u calaamadaysan caruurtiina bara ummad waliba maalin astaan u abay leedahay haddaan Soomaali nahay maalintaas aynu astaana. Axmed Xaamud oo kamid ahaa dadka soo agaasimay munaasabadan ayaa ka hadlay sababta keentay in galbeedka Columbus ay ku qabtaan munaasabada kowda luuliyo. annagu xafladan oo la jeedadeeda waxay ahayd inta badan waxa lagu qaban jiray Nooradka laakiin dadkan intan la eeg reer Columbus reer West waliba West Side weligood laguma qabanin inay damaashaadaan ciyaalkooda arkaan inay tahay maalin ay ku leeyihiin mataqaanaa adduunka calan u dhashay oo dawladda jirta calan baluuga qurux badan ay leeyihiin in la baro oo ka sheekeeyaan marka iskuulada la furo oo dhahaan West Side waxaan ku qabanay maalintii calankeena Soomaaliya ama dawladnimadeena xornimadeena aan helnay oo la jeedadeena intaan baa ahayd waana ku guuleysanay insha Allah wada haddaan annagana mataqaanaa ka weerno sanad dambe waa la qaban doonaa dadka naga dambeeyana oo qaban doonaa dadka soo qayb galana waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin Noorad waxa nooga nimid odayaal tiro badan aqoon-yahan waxgarad ayagana aad baan ugu faraxsanahay siday noo soo xoojiyeen. Kawsar Muuse ayaana kamid ah dadka goobta ka hadlay. Dhamaantii waa mahadsantiin ka soo qaybgalkiina maanta xafladan aan nagala soo qayb gasheen sharaf bay noo tahay haddaan nahay reer West Side-ka ina maaragtay aad noo imaateen si qurux badan baan ku soo dhaweynaynaa xafladan runtii muddo oo 3 isbuuc aan ka soo shaqeynaynay si maaragtay aan u hirgelino oo ay dadku u farxaan maxaa yeelay maalin kasta in dadku guuraan oo Nooradka tagaan 30 minute drive garayaan waxaan dhahnay waxa ka fudud in maaragtay aad gurigiina la idinku sameeyo hawsha dadka soo shaqeeya markuu inoo mahad celisaan. Columbus maanta taariikh ayay dhigtay mana dhicin taariikh midan lamid ah
waxaa sidaas yiri xildhibaan Ismaaciil Maxamed oo kamid ah xildhibaanada gobolka Ohio laga soo doorto. waa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo markii ugu horeysa especially west side community-ga sida numberka weyn loogu soo baxay kowdii luuliyo waliba ayadoo tahay markii ugu horeysay waxaan rabaa inaan ku sheefo aad iyo aad sida numberka weyn loogu soo baxay maanta inaan taariikh qornay kama dhicin gobolka Ohio inay wasaaradda arrimaha dibadda calanka ay taagaan weligeed kama dhicin ka taariikhan qornay waa kaas marka reer west side oo ku amaanaya kaas aad iyo aad waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo aad iyo aad kulankii gruubkii soo qaban qaabiyey uu kowka yahay runtii adeer xaamud waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo adeer xajiin cabdow cabdibaar cabdinaasir shaafi shafaat runtii lama soo koobi karo tiim diyaad culus baa waqti iyo juhdi soo geliyey. maxay tahay sababta aan u xorownay waa kan Shaafi Shafaad oo ah hogaamiyaha soo agaasimay xafladan loogu dabaaldegayo kowda luuliyo. anigu waxaan ahay madaxweynaha Somali American Chamber of Commerce laanta ganacsiga dadka ganacsatada Soomaaliyeed haddaad ogeyn ogow awood aad u fara badan baan ku leenahay ilaa 13,000 oo ganacsato ah oo reer Ohio aan leenahay waa number weyn sama ganacsatadeena waxaan ugu baaqaynaa inay garab istaagaan xildhibaanadeena dadka dadaalayo annagu waxaan diyaar u nahay inaan idin shaqayno ganacsiga iyo dadweynaha isku xirno muhiim waaye xafladaha noocan oo kaleta maanta waa maalin qaali noo ah waxaad ogtihiin xornimadan qaadanay ma aha xornimo inaan dhiigga islaamka banaysano ma aha inaan ku xorowno inaan inaga iskhiyaano ma aha inaan ku xorowno inaan qabiil u kala tagno waxaan u xorownay inaan dad muslimiin ah oo Soomaali ah oo hal af ku hadla oo doonaya dalkooda iyo dadnimadooda inay ilaashadaan waxaan la joogaa family Bantu Somali Bantu oo dad aad u badan ah khaasatan west side aad baad u mahadsantihiin hooyooyinka iyo gabdhaha family Bantu oo noo halkan noo yimid maanta idinkuna waxaan idin leenahay maalintu ha idin wacnaato insha Allah sanadka dambe waxaan isku dayaynaa mid ka qurux badan inaan idin sameeyno. intaasi kadib la taliyaha madaxweyne Biden mudane Xamse Warfaa ayaa sheegay in uu aad u faraxsan yahay maadaama uu goobjoog u yahay xuska maalmaha xurriyadda Soomaaliya. marka Ohio dad aad u qiimo badan jooga waa farxad aad iyo aad iigu weyn runtii inaan maalmahan qiimaha badan aan halkan idinla joogo waxay ii tahay runtii miisaaniyad aad u culus farxad aad iyo aad u fiican baa dhammaantiin idinka muuqata sidiinaasoo kale aan u faraxsanahay marka aad iyo aad mahadsantihiin